qisadan waxay ku saabsan tahay tuug. Waxaa la yidhi nin ayaa wax laga xaday gaarigiisii waqti habeen ah. Maalintii labaad markii uu yimid meeshii gaariga laga xaday ayuu wuxuu arkay gaarigiisii oo la nadiifiyay oo la hagaajiyay oo barti yaala. Markii uu gaarigii furay ayuu wuxuu ku arkay warqad saaran oo ay ku qoran tahay waxaan ka cudur daaranayaa inaan gaarigaagii xaday maxaa yeelay xaaskayga ayaa xaalad adag ku jirtay oo way foolanaysay. Waxaan u qaaday isbitaalka ugu dhow markii wayna dhashay alxamdulillaah. Waxaan kaaga tagay hadiyad adiga iyo qoyskaaga. hadiyadaas oo ah tigidhka shaneemada filmaanta lagu daawado maaragtay in aad shaneemadaas aad tigidhka lacag la'aanta aad ku gashaan. sidoo kalena macmacaan iyo dhandhanaan iyo wax la idin diyaariyay aad halkaas ka heli doontaan oo adeega la idin fidin doono ayay kamid tahay. ninkii waa uu dhow la cadeeyay ilin ka timidna waa uu iska masaxay. wuxuu yiri ilaahay wadaa mahad leh ajir aanan shaqaysan si dhib yar nagu siiyay. kolkii uu soo daawaday isagii xaaskiisii filimkii ama seenamadii shaneemadii ay tageen soo daawadeen soo laabteen ay wax u yimaadeen gurigoodii oo dhan oo la xaday. kadibna waxay arkeen warqad guriga dhex taalay ku qoran tahay filimkii ma ku cajabiyay. asxaabay hanaga ilaawina flowda iyo like